Federal Republic of Somalia, His Excellency Hassan Sheikh Mohammed. waxaa sharaf iyo fursad qaali ah inaan ka qayb galo wada hadalkan aadka muhiimka u ah hogaamiyaasha Afrika, madaxda bangiga adduunka iyo deeq bixiyaasha. run ahaantii hay'adda horumarinta caalamiga ah IDA oo si wanaagsan loo maalgeliyay waxa ay ka dhigan tahay fursado badan oo maalgashi, abuurista shaqooyin, kobcinta dhaqaalaha iyo ka jawaab celin wax ku ool ah oo ku saabsan aafooyinka caalamiga ah sida isbeddelka cimilada oo saameyn weyn ku yeelan kara horumarka dhammaanteen. inkasta oo ay qaaradda yar tahay ku lug lahaanshaheeda dhibaatooyinka sababay cimilada sii xumaanaysa. waqtigan caalamku wajahayo hubanti la'aanta caalamiga ah, qataraha dhaqaale, siyaasadeed iyo amni sida xiisadda badda cas iyo baahida weyn ee maalgelinta horumarka, waa lagama maarmaan in IDA 21 noqoto saldhigga ugu weyn ee taageera horumarka waara. haddii kale ku dhawaad dhammaan wadamada soo koraya ee dakhligoodu hooseeyo ayaa ku dhibaatoon doona in ay keenaan isbeddel horumarineed oo waara. waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dowladda Kenya, gaar ahaan hoggaanka mudane madaxweyne Dr. William Ruto oo martigeliyay kulankan muhiimka ah isla markaana ina mideeyay dhammaanteen. sidoo kale waxaan bogaadinayaa hogaaminta aragtida leh ee mudane Ajay Banga, madaxweynaha bangiga adduunka, oo muujiyay sida ay uga go'an tahay ka jawaab celinta mushkiladaha taagan Soomaaliya iyo IDA. hay'adda horumarinta caalamiga ah IDA waxa ay si weyn wax uga qabatay Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada dhismaha hay'adaha aasaasiga ah iyo nidaamyada, taasi oo ku dhamaatay gaaritaanka heerka dhamaystirka ee wadamada saboolka ah ee deynta lagu leeyahay bishii December 2023. ilaa 27% dadka Soomaaliyeed ayaa ka faa'iideystay howlaha bangiga adduunka tan iyo sanadkii 2018, iyadoo oo qiyaastii 69 dadkaasi ay ahaayeen kuwa sabool ah oo la nool caruur yaryar ama ay saameeyeen abaaraha. taageerada dib u habeynta wadooyinka, helitaanka iyo kaabayaasha oo adkeysiga cimilada oo fursado badan u abuurtay malaayiin qof oo ay ku jiraan barakacyaasha gudaha ee magaalooyinka u guuray sababo la xiriira amniga iyo masiibooyinka dabiiciga ah ayaa ka mid ah sidoo kale fursadahan. gabagabadii waxaan aaminsanahay in IDA 21 ay tahay fursadda isku keenidda himilooyinkeena caalamiga ah ee horumar waara iyo ilaha xoojinaya ee aan u baahannahay si aynu u gaarno mustaqbal hagaagsan. aynu u howlgalno si midnimo leh si aan u gaarno koboc iyo barwaaqo, mana ahan oo kaliya Afrika iyo muwaadiniinteeda adkeysiga badan, laakiin sidoo kale dunidoo dhan waa inaynu u midownaa. waad mahadsantihiin dhammaantiin.